Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in boqolkiiba 10 bacaha la sameeyay dib loo warshadeeyay taasina ay dhalisay inay saameyn ku yeelato deegaanka. Warbixintan ayaa sidoo kale xustay in ilaa 5 trilyan oo bacaha laga isticmaalo dunida oo dhan sanad kasta. Shiinuhu waa dalka ugu badan ee bacaha adeegsada halka Mareykankuna uu yahay ka ugu wax soo saarka badan. Dhanka Soomaaliya dhalinyaro is abaabulay ayaa doonaya in wax laga qabto bacaha dadkana lagu dhiirigeliyo inaanay isticmaalin. waxay dambiilo u qaybiyeen dumar suuqa ka adeeganayay waxayna codsanayeen in la mamnuuco isticmaalka bacaha. wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. waa dadaal lagula dagaalamayo isticmaalka bacaha. dambiilaha ayaa noqon kara bedel u wanaagsan bay'ada. waxa uu sheegay ummadda Soomaaliyeed inay iska daayaan bacaha ay ku adeeganayaan iyadoo bacdu keentay cudurro badan. hal one-time weeye hal mar ayaa la isticmaalayaa ka bacdi xoolaha cunaya magaaladana waxay ku haysaa dhibaato badan. salada markii aad alaabta ku qaadato kaama dhamaanayso oo biri markii aad haddana suuqa soo aadayso hore ayaa u soo qaadanaysaa. laakiin bacda markii aad qaado hore lay u tuuraysaa ma kaa caawinayso in biri aad adeeg ku soo qaadato. waa isku day kooban oo bilow fiican u ah ilaalinta deegaanka. isticmaalka baahsan ee bacaha ayaa sababa dhimashada xoolo fara badan iyo baaba'a dhulbeereedka taa oo sabab u noqota cunno yari dalka ka dhacda ugu dambayntiina ku soo gabagabowda macluul baahsan oo dad badan ay naftooda ku waayaan. waa khatar aan lagu baraarugsanayn oo dilaa ku ah deegaanka. dowladda Soomaaliya kuma mashquulsana arrinkan. dadaalada wacyigelintu waxa ay ku kooban yihiin dhalinyaro isxilqaamay. kadib markii aan aragnay in maxay ahayd cid u istaagayso ilaalinta deegaanka inaysan jirin oo xukuumadda iyo ama aysan jirin baan dhihi karno wasaarad gooni ah oo deegaanka ka shaqeyso waxaan aan go'aansanay in anaga is abaabulno dhalinyarteena gaar ahaan dhalinyarta deegaanka baratay in is abaabulno oo aan ka shaqeyno deegaanka sida loo ilaalin lahaa. saamaynta bacda ayaa ah mid raagta sida qashinka kale bacaha iyo caagaduhu ma baaba'aan waxa ayna dhibaatadoodu taagnaan kartaa muddo aad u dheer. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.